ciidamada kala duwan ee ammaanka ayaa habeennimadii xalay tahayd fashiliyey weerar maleeshiyaad ka tirsan dhagarqabayaasha al-shabaab ay isku dayeen inay weeraraan saldhigga degmada Kaxda ee gobolka Banaadir. Afhayeenka ciidanka booliiska Gaashaanle Sidiiq Doodisho oo warbaahinta kula hadlay xarunta degmada Kaxda ayaa faahfaahin rasmi ah ka bixiyay khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay qaraxaasi. khawaarijta ayaa weerar ku adeegsatay gaari ay ku soo rareen walxaha qarxa kaasoo ujeedadoodu ahayd inay ku dhibaateeyaan saldhigga booliiska iyo xaafadaha kale ee ogdhow ee dadka shacabka ah ee degan goobtaas. qaraxaas ay khawaarijtu u soo adeegsatay gaariga walxaha qarxa kadib waxay soo weerareen saldhigga oo ay u isticmaaleen in ay weerar toos ah ku soo qaadaan. hase yeeshee ciidanka howlgalka ciidamada ciidanka booliiska military ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo saldhigga heegan ku ahaa ayaa khawaarijtii la falgalay iska caabiyey weerarkii naftahaligimada ahaa ee khawaarijtu ay saldhigga booliiska ku soo qaaday. khasaaraha goobta ka dhashay ayaa ah dhimashada 2 askari oo ka mid ah ciidankii halka khawaarijta kula falgalay oo ka difaacay iyo dhaawaca 3 kaleeto oo dhamaantood ahaa ciidankii u babac dhigay khawaarijta weerarka soo qaaday. khasaaraha kale ee dadka shacabka soo gaaray ma jiraan wax khasaaro ballaaran dadka shacabka soo gaaray laakiin kaliya xaafadihii ama guriyihii ku dhawaa saldhigga ayaa rasaas dadka shacabka ugu tagtay sidaas daraadeed 2 qof ayaa dadka shacabka ana dhaawac fudud ka ah oo rasaastu ay gaartay. ilaahay ka baryaynaa inuu inta shahiidana u naxariisto inta dhaawacana ilaahay noogu booganayo. dhanka kale ciidamada saldhigga ku sugnaa waxay jab xoog leh gaarsiiyeen khawaarijtii oo isugu jira dhimasho iyo dhaawacba. waxaan u tagnay goobihii khawaarijtu ay ku baxsadeen oo ay dhaawaca iyo maxay ahayd meedadkooda ku jiiteen. waxaa xusid mudan oo pointiga ugu dambeeya oo maanta la wadaagayna ay tahay ujeedada ay khawaarijtu weerarka u soo qaaday iyo weeraradii kale oo kan la halmaalay waxay ahayd in ay attentionka weerarada goobaha furimaha iyo banaanka magaalada looga qaaday iyo jabka xoogganay ciidamada xoogga dalka iyo ciidamada kale qalabka sida jamhuuriyadda ay gaarsiiyeen in ay attentionka dadka u soo jeediyaan in weeraradaas culayskooda looga qaado. laakiin waxaan u sheegaynaa khawaarij iyo inta la halmaashaba in weerarada ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada kale qalabka sida jamhuuriyaddu ay ku baxsanayaan kaymaha iyo furimaha oo uu horboodayo ama horkacayo madaxweynaha jamhuuriyadda Dr. Xasan Sheekh Maxamuud aysan marna maxay ahaydey niyadjabin doonin oo maxay ahaydey weeraradaas ay u socdaan iyo dhulka laga xoreynayo iyo deegaamadii iyo systemka khawaarijta dalka looga sifeynayo oo halkiisa ka socon doono. weerarada naftahaligimada ah ee tobanimada ah ee fulinimada ah intee meel ku soo weeraray carraan aysan hor istaagi doonin weecini karin weerarada khawaarijta biidhnillaahi albaari gabagabada sanadkan ama sanadka xiga waxaan rajaynaynaa biidhnillaahi albaari in khawaarij dalkan laga xoreeyo oo Soomaaliya oo aag khawaarijta ka cagan ayna noqoto insha Allah. magaaladana waa ku baacsanaynaa baadiyahana waa ku baacsanaynaa khawaarij si kasta oo loo dagaalamo karo waa loo dagaalamay. instructionkaas iyo guidance-gaas ay dawladdu qaadatay madaxweynuhu hormuudka ka yahay ayaa dhammaanteen qayb ka wada nahay. khawaarij waxaan u sheegaynaa gobolkooda waa dhacay ummadda Soomaaliyeed inta u ogaadaan wabillahi tawfiiq وما سنتي شركة جرايد ما أنت كوساب سيهاي حمزة رادي warbaahinta qaranka Muqdisho.